Angelina Jolie ma dhafaanay qaadatay diinta Islaamka ma wuxuu kaga tegay ninkeedii inay korinaysa carruur aanay iyadu dhalin maxay ahayd khiyaanadii foosha xumeyd ay ku samaysay Jennifer taasoo nolosheeda oo dhan burburisay tirada caanka ah Angelina Jolie been mise balwad waa kan ugu foosha xun ay ku kala tageen Angelina Jolie iyo ninkeedii aktarka caanka ah ee Brad Pitt maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena ficilka ay qaaday Angelina Jolie ee lagu shaambadiyay inay qaadatay diinta Islaamka 13 sano ka hor khiyaanadii ku haysatay Jennifer taasoo ay la kulantay Angelina cawaaqibkeedii muddo kadib hadalladii tigashada lahaa ee Jennifer ku tiri Angelina iyo xogo kale oo muhiim ah balse ka hor intaa waxaan idinka mahadcelinayaa sidaad ugu xidhateen YouTube-keena Baldahab TV la garay muuqaalka si uu gaadho dad badan subscribe haddii aad nagu cusub tahay lana wadaag saaxiibadaada haddii ay macquul tahay markaad maqasho magaca Angelina Jolie waxaad soo xasuusanaysaa shakhsiyadda haysata abaalmarinaha ugu heerka sarreeya dhanka aflaam jilista ee Golden Globe iyo Oscar Award waa tarjad si weyn loogu ammaano dhanka jilista filimaanta doorkan koowaad iyo kan labaad labadaba waa safiir ka tirsan hay'adda caalamiga ah ee UNHCR with young children living without tents with another 2 months of winter to go. inay noqotay star iyo xidiga joogta hawada sare shakhsi haysta ma la doonayo magac dad badan ay gaari waayeen haddana Angelina ma ay noqon shakhsi isla weyn waxaanay noqotay qof ku dhex jira dadkeeda waxaa lagu tilmaamaa calaamadii astaan bini'aadamnimo Angelina Jolie الخدهات كره قوتيني وجنها رياه ووقت الدنيا خلاص وداليا qofka yiraahdo waxaan xisaabinayaa inta jeer oo ay garab iyo gaashaanba u tartay masaakiinta iyo dadka ku dayacan darbiyada Syria iyo dhaxamaha wadanka Lebanon kuwaasoo ay siisay cunno daawo labis iyo waxay hoodaan intaba haddaba inta aynan gelin sababta loogu shaambadiyay qof islaama ama shakhsi qaatay diinta Islaamka oo muslima aan ku horeyno khiyaanada jacayl ay u geysatay xaaskii hore aktarka Brad Pitt aktarada caanka ah Angelina Jolie I don't know how we got here. I've gone above and beyond. Angelina Jolie waxay ahayd 2004 markii ay linka keentay indhaha Jennifer Aniston kadib markay si badheedh ay uga wareegtay ninkii ay jeclaayeen iyo aktarka caanka ah Brad Pitt xaaskiisii Angelina ka hor waxay ahaayeen Brad Pitt iyo Jennifer laba qof oo isku faraxsan balse wax kasta waxay qarimeen kadib markii 2004 ay filim wada sameeyeen xidiga Angelina Jolie iyo Brad Pitt isla markaasba waxa dareen xoogan iyo jacayl ma filaan ku qarqisay aktarka Brad Pitt tirshada caanka ah Angelina Jolie ilama uu gaadhay gabi ahaan baynu ilaawo magaceedii xataa xaaskiisii hore Jennifer Aniston markii ay isbarteen xiriir la sameeyay tirshada caanka ah Angelina Jolie divorce with Angelina. Well, we can't help but sadly say that we waxay ahayd markaasi goortay ilmadeeda xishan weysay Jennifer Aniston dareenkeedana ay xakameyn kari weysay iyadoo ku soo ifbaxay gabi ahaanba jacaylka iyo dareenka dhabta ay u qabtay ninka la odhan jiray Brad Pitt murugaduna ay noqotay shay guudkeeda ka ifa balse ugu dambeyn arrinkaasi cidla ayuu uga dhaqaaqay Brad Pitt waxaana go'aansaday inuu xiriir dhaba la sameeyo nolol dhaba Angelina Jolie ugu dambeyn waxay dalbatay furiin markii ay aragtay wax kasta sida ay u qaribeen iyo gabi ahaanba inuu u jabay dhanka Angelina Jolie Brad Pitt xiriirkaasina wuxuu noqday mid flop ah oo gabi ahaanba lagu kala tegay kadib markii ay dhexda ka soo gashay Angelina Jolie nel cuore che dubita è sempre inverno ayaama yar kadibna gabi ahaanba waxay miidiyaha ka shaaciyeen in xiriir dhaba sameeyeen iyo nolol dhaba aktarka iyo tirshada Angelina Jolie iyo Brad Pitt sidaan hawada looga saaray gabi ahaanba Jennifer Aniston xiriirkeedii iyo nolosheedii hore waxaana taasi ahayd cawaaqibkii ugu wanaagsan gabi ahaanba dusha saaratay tirshada caanka ah Angelina Jolie waxaana bilowgiiba ay ku tashadeen inay koriyaan ubad qurux badan waxaana ka soo qaateen 2 ilmood oo aynay dhalin wadamada Ethiopia iyo Cambodia 2 ubad oo kala duwan qaaradahan
jinsi ahaan iyo sidoo kale midab ahaanba. muddo sanada kadibna waxay dhaleen ilmahooda gacan ku rimiska halka sanadkii labaad ee noloshoodana ay dhaleen ilmo mataana oo aad u qurux badan. gebi ahaanba kuwaasoo hal sawir oo qurux badan oo laga qaaday lagu baayacay $1 milyan oo dollarka Mareykanka. waxa kale oo ay soo kaxaysteen ilmo Bakistaani ah muddo kadib si ay u kafaala qaataan noloshiisa lamaanaha Angelina Jolie iyo Brad Pitt. sidaasna waxay ku korinaysaa 6 carruur ah Angelina Jolie. haddaba sidee ayay wax u dhaceen? maxuuse yahay arrinka soo ifbaxay kaasoo gebi ahaanba saameeyay nolosha Angelina Jolie muddo 13 sano kadib? I've laid your clothes out for you like you were a 4-year-old. nabsi waa kii dhintaysanee waxaa gebi ahaanba kaydka ugu jiray burburkii iyo khiyaanada ay ka gashay Jennifer Aniston taasoo ay ka qaaday ninkeedii. waxaana soo shaacbaxay furiinka lamaanaha Brad Pitt iyo Angelina Jolie kadib markuu ka raacay Brad Pitt gabadh uu la sameynayay filim isla sida ay ku samaysay gabadhii ay hore uga qaaday ee Jennifer Aniston. You think the story's gonna have a happy ending? Happy endings are just stories that haven't finished yet. muddo 13 sano kadibna waxaa baraha bulshada soo fadhiisatay Jennifer Aniston iyadoo leh waxaa dilaacay xaqa waxaana daawo ka fidmay gebi ahaanba nabsigii layga galay. noloshu waa mid adiga kuu taala waxaad guutaana adiga ayay ku saamayn doonaan muddo kadib. raadka aad ka tagtaana adiga ayuu ku saamayn doonaa mustaqbalka. waxaan maqli jiray god khiyaanaha qodin ku dhicin doontaana mooye ama sidoo kale ushii walaalka aad ku dhufataa gumidkeeduna adiga ayuu ku yaalaa. maxay ayaad filaysaa markaasi kadib Angelina Jolie ay soo sheegtay baraha bulshadana ay la soo fadhiisatay gebi ahaanba iyadoo ka hadlaysa xidhiidhka ay la lahayd Brad Pitt. Other sources claim that she's taken a break from her love life and has spoken. Angelina Jolie iyadoo isku daysay gebi ahaanba inay baabi'iso sidoo kalena ay ku raad kadata waxyaalo kale ayay tidhi aniga iyo Brad Pitt waxaan ku heshiin weynay nolosha. gebi ahaanba sida ay wax nagu socdeen waxay noqdeen si qalafsan. aniga waxaan haysaa u badiya carruur aad u badan. Brad Pitt waxa uu leeyahay balwadaada xun wuxuu cabbaa khamriga. taas waxay keentay gebi ahaanba faamilkayga iyo carruurtayda inay ku sii socon weydo. sidaasina waxaan ugu kala faataxaysanay oo ku kala tagnay aktarka caanka ee Brad Pitt. mana jirto wax qiyaamo ah iyo wax kale oonu ku kala tagnay aktarkaas. She's also known for her humanitarian efforts. balse gebi ahaanba waxaa beenoobay warka kadib markii la arkay aktarkii Brad Pitt haatarashadii lagu xamanayay isagoo gacanta haysta mar kale oo iyadii ku faraxsan haddana markii ay kala tageen Angelina Jolie. calaashaan ninkani maaha nin wax laga qaban karo gebi ahaanba. waa nin mar kasta iska raacaya tirshada filna jisha ilaa wiilyatii hore uu nolosha la lahayo ubadka intaba. maxaad ku tilmaami lahayd qisada ninkan iyo aktarka caanka ee Brad Pitt? anigu waxaan leeyahay wuxuu ahaa shilmad raac weyn waan waxba laga qaban karin gebi ahaanba. Relationship goals, while obviously making. haddaba intaynan sidoo kale ogelin arrinta loogu maleeyay inay muslintay Angelina Jolie waxaa la sheegaa in lala soo darsay arrin cilmi nafsi iyo xaalado caafimaad oo aad u adag. waxaana ka mid ah inuu haleelay kansalka ku dhaca naasaha gebi ahaanna ay jartay mid ka mid ah naasaheeda iyadoo ka durkaysa xanuunkaasi kansarka ee ku dhaca naasaha. sidoo kale waxay gebi ahaanba iska soo xaadhay goxanta dhalmada muddo dhoweyto Angelina Jolie taasoo ay dad badan u saadaaliyeen khiyaanadii iyo dembiyadii ay ka gashay gabadhii la odhan jiray Jennifer Aniston maadaama ay ka qaaday qofkii ay jeclayd muddo badanna indhaheeda ay ilmo ka keentay. Denied his request for joint custody the only time he. haddaba muxuu yahay arrinka tilmaamay gebi ahaanba inay qaadatay diinta islaamka kaasoo keenay lagu shaambadeeyo shaqsi qaatay inay noqotay gebi ahaanba Angelina Jolie diinta islaamka oo muslina. arrinka cajaa'ibta badan ayaa waxa uu yahay gebi ahaanba markii lagu arkay iyadoo sidata qamaarka ama sidoo kale xijaabka dadka muslimka ah oo caanka ee wax calaamadda dumarka maxajaamiinta ee islaamka. mar wax laga weydiiyey arrintaasina waxay tidhi islaamku gebi ahaanba waa nabadgelyo waa wanaaga iyo sidoo kale naxariis. ma aha sida ay ka aaminsan yihiin waddamo badan kuwaasi oo u adeegsanaya siyaasad diinta islaamka ah.
our strength as democratic societies. haddaba daawade maxaad ku tilmaami lahayd qisada dhex martay saddexda qof ee kala Jennifer Aniston, Brad Pitt iyo Angelina Jolie midkii aaminsan tahay khiyaano iyo isfahan darro inay ku kala tageen Brad Pitt iyo Angelina ma odhan karaa wuxuu ahaa nafsi sugayay waqtigiisa ee gabi ahaan haleelay nolosha Angelina Jolie fikirkaaga iyo wixii faallaa cidda aad jeceshay inaan kaga soo hadallo muuqaalada dambe noogu dhaaf gabi ahaanba qaybta commentiska ee hoose fadlan hana ilaawin haddii aanad laygarin muuqaalka inaad taabato buttonka like subscribe si aad u daawato muuqaaladeena dambe lana wadaag saaxiibadaada haddii ay macquul tahay